cudurkan la leeyahay faadka waxyaalaha ugu mid waxay tahay qofkii intuu cunayay iyo intii ka baxaysay baa kala badanaya. waxaa kaloo halkaas ka arkaysaa gabdhaha Soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay dad qiimo lena ay yihiin sababtoo ah keesas badan oo noocaas oo kaleeta baana soo maray. cunuga marka uu bridge hoos lugaha keeno waa inaad gacanta hoos gelisaa oo kor u soo qaadaa kiishanaade wadaha caadi uma dhali karto waa in qaliin ay ku dhashaa. laakiin dadka da'da age-kaas oo dhalinyarada waxaa u badan cuduradan galmada la iska qaadsiiyo ma arkaysaa. waxaa ay diido waxaa kamid ah inaysan dumarku uurka qaadinin waa wax jira. caanaha naaska ay siinayso badanaa 2 sano ilaa caadi ahaan diinta xataa way sheegaysaa badanaa ma qaado. haddii uusan ninkii gabadhii waxba ka qaban karin waxay xaq u leedahay inay ka tagto. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khiyaarta hawada nagala socotay waxaa la soo gaaray xilliga barnaamijka late night show. xilligan oo kale aan idiin soo gudbin jirnay magaalada London. barnaamijkan ayaanu waxaanu ku eegnaa cudurrada kala duwan ee idinku inta badan aad usoo qortaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha walking clinic. dabadeedna marka ayagu ay soo diyaariyaan mawduuca wiiga ugu xiisaha badan si bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto looga haqabtiro baahida xanuunkaas inta la awoodo. haddaba isbuucyadii la soo dhaafay ayaa waxay noo soo qorteen waxyaalo aad u kala duwan, cudurro kala duwan. waxaana ka mid ahaa cudur dadka Soomaalida waagii hore aysan horey u aqoonin laakiin hadda halkan kusoo badanaya iyo wadamada kale oo aan joogno say dhakhaatiirtu ii sheegaan cudurkaas oo inta badan dumarka u badan waa say dhakhaatiirtu hadalka u dhigeen kaasoo dhaliya inay lugaha xididdo ka soo baxaan waaweyn. xididadaas oo kuwa muuqda aan moodid oo markaas aad arki karaysa jirka. waxyaalaha keena oo dhibaatooyinka ay keenaan iyo sida loo daaweeyo iyo sida looga hortago ayaanu jecelnahay barnaamijkan caawa inaanu wax ka ogaano haddii ilaahay yidhaahdo. wayna ku mahadsan yihiin dadweynihii aadka u fara badnaa xanuunkaa noo soo qoray. waxaan ogahay dad kale oo fara badan oo xanuunyo kala duwan soo qoray laakiin xaqiiqatan wadaday kusoo jiraan qof aan maaragtay ilownay ma jirto. laakiin mar walba waxaan fiirinaa nambarka dadka ugu badan ee xiiseynaya. haddii calaf iyo nasiib ay noqotay marka adigo inaad ka mid noqotid waanu soo daynaynaa. waxaanu ogahay inaad soo qorteen cudurrada aanu qaarkood hore halkaan ooga hadalnay sida macaanka ama diabetiga waxa la yidhaahdo iyo weliba cudurka isla hadalka amase dadka shakiga ku dhaliya baranooyada dadka la yidhaahdo. dad baa daba socda waa la waardiinaya booliis baa daba socda dad maxay tahay ajaaniba ay waardiyeysanaya dad ay waxyaala noocaasa ku dhashaan iyo waxyaalo lamidoo fara badan oad noo soo qorteen labada baan ka soo qaadanaya. haddaba xanuunkan ayaanu waxaan insha allahu tacaala caawa kaga bogan doontaan barnaamijkan. waxa uu u badan yahay dumarka saan hore u sheegay. dhakhtarka ayaa noo faahfaahinaya waa Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo ka howlgala walking clinic oo si fiican u taqaanaan idinkana aan ku cusbayn in badan u hagar baxay barnaamijkan inuu aqoontiisa kaga hargal bixiyo. Dr. Abshir waxa waaye surgeon weeyaan maxay tahay dadka qala amaliyada sameeyo weeyaan taas dheeraadna u leh ma sha Allah iyo waxyaalo kale. doctor intaan hore u gudbin waxaan jeclahay marka horeysa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijka late night show iyo qayb qaadashada soo dhawow. sida mar walba ay soo dhaweysad waan dhawahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Cabdi Xafiid. waa hagaag doctor soo dhawow. intaa ka sokow waxaa ku dhalay aabo Soomaaliya macruufka oo si fiican loo yaqaano. adagana waanu salaaminaa Dr. Cabdalla Mansuur Professor Cabdalla Mansuur aad iyo aad baan u salaaminaa iyo ehelkiisa meel kastoo joogaba. waa hagaag intaa kadib doctor inta aanan soo daynin video sawiraan jeclayna dadka kaga haqabtirno waxaan ka hadlayno because dadku mar walba waxay noo soo qoraan waxay rabaan inay arkaan waxa la sheegayo dabadeedna ayagu isku fiirshaan dabadeedna halkaa ay ka tusaale qaataan. waxaan jeclahay intaanan halkaa u gudbinin marka u horeysa inaan soo daayo walking clinic macluumaadkeeda iyo meesha laga helo. mar walba waxaadna weydiisaan waa i dhaaftay caawa 2 jeer iyo 3 jeer baan kugu soo celinaa daawasho wacan. waxaa dhammaan baa bulshaweynta Soomaaliyeed la socodsiinaya in xarunta caafimaad ee Soomaaliya Doctors Medical Center ee ku taala Tottenham High Road ee ku dhegan masjidka Sunna loogu talagalay in dadka lagu daweeyo guud ahaanba cudurrada guud iyo cudurrada carruurta iyo cudurrada haweenka. intaasi waxaa dheer in xaruntaasi ay ka howlgalaan ilaa iyo 13 dhakhtar oo Soomaaliya ajnabi isugu jira loogu talagalay in lagaga buuxin karo foomka la xiriira qaadashada laysimada tagaasida BCO-ga iyo weliba basaska iyo weliba waraaqaha kale caafimaad dadku ay u baahan yihiin. meel kastoo aad joogtaan bulshooy dhakhaatiirtu waxay kugu hadlayaan afkii hooyo Soomaaliga Soomaaliya Doctors Medical Center. waxa kale ugu talagaleen goobtaasi gudniinka wiilasha iyo weliba dadka doonaya inay membership ka noqdaan amaba xubin buuxda xaruntaasi. waxaa intaasi ku dheer in walking clinic aad ka helaysid qalabka lagu ogaado guud ahaanba cudurrada kala duwan ee ka jira uurku jirta ultrasoundka iyo qalabka kale casriga ah ee lagu ogaado cudurrada wadnaha. yaalna moogaan meel kastoo aad joogtaan
intaan sheegay iyo ka badanba inaad ka faa'iidaysataan dhakhtarada 13 kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road oo ku dhagan masjidka Sunna wixii faahfaahina kaashada hagaag waxaan jeclahay insha Allah taala intaanan wax kalaba qabanin marka horeysa inaan idiin soo deeyno sawirro dabadeed dhakhtarku uu macneeyo xanuunkan si fiican maaragtay loo dhexgalo loona sharaxo haddaba adinka iyo Dr. Abshir Cabdullah Mansuur baa kaga dhaxbay doctor sawirradan bal ka waran insha Allah caawa waxaan ka hadlaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa loo yaqaan vena varicose waa xididada oo lugaha ku yeelaan oo barbarara ama maxaan ku dhahaa hadda sawirkan waxaan soo qaatay inaan kala saaro horta xidid muxuu yahay xididada qaarna halbowlayaal qaarna aroorayaal lagu magacaabo xididka dhiigga wada waa gaduud oo aan ujeedaan oo gaarsiinaya dhiigga oo jirka oo dhan xididka kale oo buluuga ah waa kan soo wada celinayo oo dhiigga wadnaha ku soo celinayo oo hadhowna loo diraayo sanbabada inay nadiifiyaan oo cunto lagu daraayo haddana gaduud laga soo dhigayo gaduudka uu soo qaadayo oo jirka gaarsiinayo kan waa neerfa si isugu qaldin Soomaalida xidid ay u taqaanaa laakiin kan waa nervo xidid dhexdiis wax maraya ma aha waa nervo oo qaadaya maxaan ku dhahaa qabow kuleel socodka movement waxyaabaha soo qaabilsan yahay laf dhabartu maraya maskaxdu ka soo bilaabanaya gacmuhu ku faafsan yahay marka xidid le ma aha waxa waa xididada qaar dhiigga ku wada iyo xidid oo nervo loo yaqaano waay marka neerfaha kan noo qaabilsan inaan soconno inaan hadalno inaan qaboob dareemno shanta dareemo oo aan qabno dhan midkan ayaan qaabilsan oo jaallaha ah dhexdiisana tuba ma aha waa fiilo koronto oo caadi ah oo shaqaynaysa waay kan waxaa jira xididdo yaryar oo lympha loo yaqaano marka saddex nooc oo xididdo ah ayuu qofka bini'aadan leeyahay kan waxa waa difaaca oo bini'aadanka qaabilsan yahay oo meel kasta uu fadhiisto sida maxaan ku dhahaa meel walba oo laab ah ayay noo fadhiyaan waa xerooyinka militariga ee qofka bini'aadanka meesha laga difaaca ayay qaabilsan yihiin kuwana xididdo yaryar waay oo mashaakil keenaya waxaan usoo qaatay hadhow markii aan gudaha galno mashaakilaadka imaanaysa kan hadda marka labadii oo saddexdii wada socdaan idin tusaya mid oo gaduudka waa dhiigu wada midka buluuga uu soo celinaya kuwa yaryar waa maxaan ku dhahaa kuwa difaaca ahaa oo ayagana sembra la socdo mar kasta la socdo dhammaan xididada ay la socdaan oo qofka bini'aadanka intaan ayuu ka kooban yahay neerfaha hadda kuma jiro oo kuma tusayo waa jaallo ayuu caadi ahaan uu yahay marka sababta aan usoo qaadanayo bal xididada horta kow aan kala saarno marka kan oo dhibaatada u imaanaysa waa xididka buluuga ah oo celinaya dhiigga way kala duwan yihiin siday u dhisan yihiin kan kale kan gaduudka ah oo xididka arteria ama maxaan ku dhaha waraabiyaha oo dhiigga jirka geynayo waa elastic wuu bambaareyna wadnaha garaaciisa dhiigga elasticita ayuu leeyahay oo wuu furmaya laakiin kan ma laha xubkiisna wuu yaraa buluuga vena lagu magacaaba elasticitana ma laha dhiigga kor usoo celinaya gravitationka si kasoo horjeeda ayuu celinaya waana khafiif so maxaa u suurtagelinaya kan kale maxaan ku dhahaa haddii xididada waa kana marka xididada buluuga dhiig celinaya hadday jilcaan ayaa waxaa imaanaysa in xididkiisa ujeedid dhiiggii uu dhex fadhiisto kaas haddoo ay noqoto sidii ujeeda bahal oo kale noqoto hadduu inuu culeys keeno quruxdii qofka uu ku cayaaro haweenka hadhowna nabara ay isu bedelaan ayaa dhici karto xididadan waaye sababta isaan u noqonayaan waxa waaye genetically familiarity dhaxal ahaan waxay u noqonayaan shaqada qofka oo istaagni aad u tiro badan waa inuu dhaqdhaqaaqaa xididka saa ujeedid labada muruq oo lugta hoos hadda marka dhiigga waxa riixaya waa murqaha oo caawinaya si gravitationka sida uga soo horjeeda dhiigga kor u aadaya oo aadaya marka kan ma aha arterigii waa veeno waay la dhiigga la idin tusayaa oo si murqaha ay u qabanayaan ee murqaha u caawiyaan dhiigga inuu noqdo marka dhaqdhaqaaqa oo fiican oo haddii oo qofku uu shaqo hayo xididka aan macaawa aan xooga saarayn waa xididka lugaha oo gaar ahaan haweenka iyo ragga buu ku dhacaa laakiin haweenka aad u badan waa xididkan safeena la dhahaa safeena mid weyn iyo safeena yar ayaa lagu magacaaba oo xididku ku shubaya vena femorale mid la dhaho oo gudaha ah ay ku jira waxaan xididadan oo dhan dhiigga ay soo aruurinayaan oo kor ayay u celinayaan markay kor u celiyaan ilaa iyo femoral markuu qaado wadnaha la geynaa wadnahan uu sii qaybinaa wuxuu sanbabadu u diraa sanbabada nadiif ka dhigan hadda haddii aan soo qaadana haweeney oo tan dhinacan jirto waa ujeeda markii xididadii banaanka ay soo baxeen la arkayo waa markii laga daaweeyeen daawooyinka waa ma dhexgalaynaa lugta sidii ay noqotay nadiif u noqotay lugteeda ay u wanaagsanaatay ayaa halkan ka arkaysiin marka xididada aan ka hadlayo waa kuwan oo banaanka soo baxayo waaweynaanaya xanuun ku haya bararna u
keeni kara oo mararka qaarkood markii haddii aan la daaweyninna aragsay noqonayaan barbaranayaan aad dan la daaweynin oo laga hortegin ilaa iyo qofkii ay qaabdaro ka dhigaan xanuun uu dheeryahay dhiig ayaa xataa xinjir ayaa samaysmi karto oo ka xagga inta ka tagto jirka meel kasta tegi karto wadnaha xiri karto maskaxda xiri karto tan waa haweeney ayagana haweeno a ujeedid ku samaysmay xididadaas mashaakilaadkaas oo xididadii oo noqonaya dhiiga oo mashaakil u imaaday oo aan dhiigii si fiican u noqonayn meesha uu marka uu imaanaya kalarkii oo miskiinka ayaa isbedelaya maqaarka saanu noqonaya uu isbedelaya intaan oo dhan waxa waaye haddii maanta laga daaweeyo ii sheeg xididada bararna wuu la socdaa bararna wuu la socdaa because ma noqonayo dhiig sidii loogu talagalay fursad waxay helayaa biyihii inay banaanka u baxaan so biyaha ayaa banaanka u baxay ayaa bararka keeni kara bararka oo lugaha way tara badan yihiin waxyaabaha keenayo laakiin maanta vena varicosa waa mid ka mid ah oo keenaya in lugaha ay bararaan gaar ahaan dadka waaweyn ha noqoto iyo dadka shaqooyinkooda kala duwan tan ugu daran waa marka waa ka xinjir haddaa aragtid xinjirtaas haddii ka dhaqaaqdo ee wadnaha tagto wadnaha waxay u keenaysaa wax la dhaho ama myocardial infraction ama wadna xanuun oo wadnaha hal mar la istaajiye ayaa u keenaya hadduu ka baxo balmoonayaasha u tagana b e yaa lagu magacaabaa oo soo sanbabka laftirkiisa ayaa xanuun zaa'id ah qofkii dhidida dareema xanuun uu dareemaya neefta ku dhegayso ilaa uu ka suuxo xididada dhibaatay leedahay mararka qaarkood dadka waxay u keeni kartaa xididadaas haleysanka maqaarka inuu fuuqo xataa oo nabar noocan oo kale uu samaysmo ay dhici kartaa marka mashaakilka ay keenayaan way badan yihiin vena varicosaha ama cudurkan oo xididada oo ku dhaco dadka uu keena marka la daaweeyey haweeneydii ku dhacay saan ayay jirkii uu isu bedelaysaa ujeedid maqaarkii uu kusoo noqday xididkii ayaa la baabi'inaya soo habab kala duwan ayaa loo daawaya daawadan waa daawo hadda la keenay xarunta la keenay oo lagu daaweeyo xanuunkana baabi'iso oo meeshiisa ku ekayso oo ku celiso ayaa loo isticmaalaa vena varicosaha ma raba inaan ku fogaado laakiin daawadan xaruntiina way taallaa ha daawada xarunta taallaa iskaankana xaruntu yaala oo iskaanka lagu ogaada sida lagu ogaado waxa waaye inuu qofka vena varicose qabo iskaan ultrasound oo inta kan iyo Doppler ayaa lagu ogaadaa labadaba meesha marka way yaalaan marka lagu fiiriyo oo go'aan la gaaro inuu ayaa waxa la sameeyaa xididada ayaa waxa lagu shibaa dhacaan markaas la baabi'iya kuwa yar yar si quruxda qofkiisa u soo noqoto iyo dhibaatada ugu soo noqoto kan sclerization laha ma fahamtay waa lagu sameynayo hab kale ayaa jira isagana oo loo sameeyo marka kan ugu fudud oo xididka la doonana lagu shubayo kan stripping dhahan xididka dhan ayaa la bixinaya oo lugta ku yaalo oo maxaa veenaha ah marka la bixiyo oo laga siibo si oo hadhowsan looga ilaaliyo wadnaha inaysan wax u imaan in aysan maskaxda aysan ictus ku dhicin in sanbabku uusan b e uusan ku dhicin ayaa looga ilaalinaya iyo xanuun iyo quruxda qofka saddex waxyaabo isku daro markaas waa lasaana loo xirayaa oo laanjadana lagu wada xirayaa si dhiiga oo maxaan ku dhahaa ama xanuun uusan u imaan ama taranba u samaysmin kan waa hab kale oo asaga gaarso loogala taliyo dadka inay isticmaalaan hadday qabaan cudurka noocan ah oo xididada soo baxay hadday qabaan waa inay kan oo kale isticmaalaan waa inuusan xoog u qaban waa inuusan maxaan ku dhahaa uusan khafiifna ahayn waa inuu celin karaa dhiig uu celin karaa marka cudurka aan ka hadlayno waa kaas haddii complication uu dhaco oo mashaakil uu qofka aan la daaweyn marka tan ugu weyn saddexyaalka ugu weyn waxa waaye thrombophlebitis waxa la dhahayaa jiro oo lugta dhan gaduud ay noqonayso waa isbedelaysaa karkaraysaa kulaanaysaa thrombophlebitis lagu magacaabaya boy maxaan ku dhahaa ulcer meeshii fuqayso maxaan ku dhahaa iyo xididkii xinjirtii oo bartiraysa ka tagto meeshii oo aado sanbabka oo hadhow dhibaato fara badan ayna sanbabka u keento xaydho qayb intee laag bay ka qaadataa xaydho ayadana percentage aad u badan ayay ka qayb qaadataa daawada ayaa waxay ka tirsan tahayba in qofka bani aadamka lugihiisa markuu guriga imaado lugaha kor uu u qaado uu meel saaro oo si dhiiga caadi ah uu soo noqdo daawada kale waxa waaye in gaarsada uu isticmaalo oo lugaha dhiiga maxaa si uu soo noqdo tan kale inuu obesity culeyska uu rido way ku jirtaa tan saddexaad soo galaysaa then marka dietkii cuntadii inuu iska ilaaliyo oo mashaakil keenayaan oo ayagana laftirkooda way ka qayb qaadanayaan dumarka uurka la ka war taas ayagana waxay ka mid tahay wax alla wixii caloosha maas
oo wax weyn oo caloosha ka samaysmo waxay xididada lugaha ka soo baxaya baloogay ku sameeyaan xoogaa so dumarka uurka leh waa dadka ugu badan uu ku dhaco xididadan oo banaanka soo baxo uur fara badan markay ay yeeshaan oo kala duwan iyo haddii ovaayada ama maxaan ku dhaho meesha ugxanta iyo hadday ayagana barar iyo ama tumor ama kansar iyo wax ku soo baxaan ayagana baloogay keena xataa kansar uusan ahayn tumor caadi iska ah simbil bararay ayaa baloog u keenaya simbil markaa lug bararsan iskaana meelahaas la saaraa waa la ilaaliyaa waa laga bixiyaa dhiiga waxa celinooya meesha taagan obstacle marka haddii xaaladda dumarku saas ay tahay raggii asaga xaggee iska soo galaan xididkan marka xididka raggan uu ku yaalaa haweenkan uu ku yaalaa marka haweenka ayaa ragga waxaa u sababa ayaga shaqada oo istaaga ah oo sida warshada laga shaqeynaya ama meel ah maanta dhan taagnaanaya xididkii waa inay dhaqaaqaan every time inay dhaqaaqaan waay sababtoo ah waxa soo celinaya dhiigga waxa waay murqaha ayaa qabsamaya oo ayaga caawinaya oo soo celinaya xididka dhexdiisa laftirkiisa aan veenaha aan ka hadlayo wuxuu leeyahay valvol ya meel u ogolaan dhiiga inuu kor aado kaliya ay u ogolaanayaan dadka qaar ayaa marka wuxuu noqonaya ku dhalanayaan sida dhaxalka ah valvolaha wuu jilicsan yahay so dhiigii kor aadaya oo xirayay hoos u aadaa hadduu hoos u aado way isku darsamayaan meeshaas xinjira ka samaysmaysa xinjirtaas hadhow hadday kacdo waxay tegaysaa jirka meel ka mid ah dhibaato weyn u keena meesha ugu badan ay tagtana sanbabada waay marka ma la oran karaa barnaamijkaanu rag iyo dumarba muhiim buu labadaba muhiim ayuu yahay labadaba muhiim ayuu waa hagaag doctor mar dhow waxaan jeclahay inaan dadka telefoonada usii dayno mawduucan ka hadlayna si fiican baa u qeexday markaad intaan laakiin u gudbin waxaan jeclahay wax yar inaad ka taabatid dhaxalka sida la iskaga dhaxlo iyo waxyaalaha sababo laftigeeda waxyaabaha sababo saan ku sheegay cudurada hadda cabdixafiid waxaa la ogaaday cudurada aad u tiro badan in dhaxal ay number 1 ay soo galayaan dhaxalku inuu wax weyn ka qaato sida aad taqaanay DNA-da Soomaalidu way fahmaysaa sababtoo ah marka cunug adiga dhashay iyo ama dad la soo wadaayo ama ayaa la isticmaalo oo andhuufa laga qaado hidisidaha kaas ayaa wax alla wax aad ayay saaran yihiin wax walba oo secret oo qofka bini aadanka ah meesha ku qoran yihiin completely mar dhow ayaa la dhameeyay in la aqriyo dhow aad ay u dheertahay DNA-da ku dhex jirto unuga dhexdiisa marka wax kasta cudur ha ahaado information ha ahaado qofka inuu noqonayo qof xun qof wanaagsan noqonayo kulli waxay ku qoran yihiin DNA-daas ku dhex jirta unuga gudihiisa iyo cudurrada ku dhacay laftirkooda marka cudurrada aad xooga loo saaraa cudurradaas sida haddii oo qofka oo hooyadiisa ama awowgiisa ama ay dhaxal ay u leeyihiin oo xididadaas samaysmaya ay leeyihiin asagana aad ayuu wuxuu diyaar ugu yahay haddii faktaradii hadda aan soo sheegnay obesity culeyskii istaagii tirada badnaa cuntadii xumeed wixii hadday u kulmaan asagana qofkii waa ku dhacayaan taas ayay meesha ay ku imaanaysaa aad baa doctor umahadsan tahay waxaan siinaynaa dadweynaha soomaalida ee barnaamijkan ku xiran oo aad uga mahad celinaya qayb qaadashadooda iyo su-aalaha soo qortaan iyo ra'yadiina iyo fikradiinaba aad baan kaga mahad celinaya meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan jeclahay inaan khadadka teleefanada idiin furno fadlan mawduuca laga hadlaya inaynan ka bixin insha allahu tacaala lugaha xididadaas ku yaala oo dhibaatooyinka aragteen dhakhtarka uu soo sharaxay ilaah baan insha allahu tacaala ka hadlaynaa hadhowtana barnaamijka dhexdiisa waxaan idin sideynaa video clip baanu idiin soo daynaynaa markaanu dhowr qof fursad siino ayadoo laftigeeda dhakhtarkaanu jecelahay inuu noo fasiro uu noo raaciyo wixii ra'yiga iyo fikrada uu markaa aqoontiisu ay noogu qiixo aaladda naga dhegeysanaysaana fadlan iska gaabiya emailku waa always waa a.xafid@tvuniversal.net aad kusoo qortaan xanuunada iyo ra'yadiina iyo fikradiina aad jeceshiin fooda in la daro waxaan kaloo hadday iloobay markaan sheegaya cudurrada aad soo qorteen cabitaanka sigaarka oo mawduuceena caawa ahayn laakiin dhakhtarkan laftigiisa doctor abshir anagoo soo halkaan oga wada hadalnay insha allahu tacala asagana dib baanu u soo booqan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo aad ayuu u caawiyaa cabdixaafid way soo xasuustay cabitaanka sigaarka iyo qamriga iyagana way ka qayb qaataan xididada vena varicosa qamriga ma aan soo qaadan sababtoo anaga dad muslimaan nahay soomaalideena ma cabto laakiin waxaa la arkay percentage aad u badan dadka qamriga cabo xididadaas ayagana aad u weynaadaan mashaakil tiro badan u keenaa sigaarkaasaa la socotid mashaakilkiisa tiradu ka badan yahay ani adiga ka wada hadalnay mar kalena haddii noo suurto gasho insha allah waa galaynaa sigaarka dhowr shay ka qayb qaata kanna percentage high ah ayuu ka qayb qaata dadka cabaay dhaqsi ayuu ku soo degdegaa xididada doctor ma qana xasuusta barnaamijkaas habeenkii aan wadnay sigaarka nin jooga Hargeysa soo wacay Maxamed la yiraahdo
oo yiri markaan daawaday intaasoo sano inuu cabay go-aan waxaan ku gaaray inaan dib dambe afka u saarin aad baan kaaga mahad celinaya maxaa yeelay aqoontu waa iftiin walaalkaasna waxaan jecelnahay caawo inuu daawanayo isagoo sigaar cabinin aad baan u mahadsan qayb qaadashadiisa waa hagaag aidan xafida tv universal.net iyo twitterka oo labaduba mar dhow insha allahu tacaala shaashada ay kusoo qori doonaan technicianadeena sharafta badan ayaad kala xiriiri kartaan labadaas waxaan ahayn telefonkan jeclayna codkiina ku maqalno qofka u horeeyay asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحافظ أذكر أبشر وأبي السلام أقصد وين والله المقعة فرحي وأبو أي فرحي حقي جوكتا لندن أقصد وين والله برنامج كله سعودي ولسه وحقك maxaa abuu caawa waxaan rabay wax yar oo caawa igu soo kordhay inaan idin warsado waa ka xumahay horta neerfaha xididada waxa waa maqlaay maybe inay iquseeyaan bad arrin kale caawa igu soo korortay inaan dhakhtarka aan warsado aan rabo maxay ku saabsantaha walaal abuu waxa waaye cudurka la yiraahdo ms multiclerose hadda kahor mar miyaan wada hadalnay yaha horaan u hadalnay farxii waaye gabadhii oo talyaanigaa tagtay oo waxaa lagu yiri saataa caafimaadkaaga alxamdulilah wallahi aad baan hadda ku xasuustay doctor abshir asartay insha allah barnaamijkan nagala qayb qaadatay oo aftayaan iskula hadashay waa xasuustaa berigi wallahi abu alxamdulilah xaaladaada caafimaad waa iminka hadda maasha allah ilaahay fadligiis weeyaan asalaamu calaykum asalaam abo waxaan rabay marka caawa waxay ugu soo korortay wiil israaili jooga oo dhakhtar ah oo wuxuu ugu yiraahday cudurka ms multiclerose yiraahdo daawadeedaa la helay waxaan laga helay lan ingiriiska marka dhakhtarkaa raba hadduu igu siin karo advice haddii iyaga aan ka heli karo iyo inaan dhakhtarkayga u tegi doono maxaa la dhahaa ever maalin kasta waxbaa la helaa saaka seminaaraan tagayay sida habka daawooyinka qaladka ay u isticmaalaan jibiyada loo saxaayay oo aada loogu qaylinaya marka way jirtaa daawooyin dhaqsee soo baxay waxyaaba soo baxa oo aad oo tijaabo ah ayaa jiraya oo lasoo bandhigaya laakiin taas waxaa aada ugu wanaagsan in gb-ga ay la xiriirto waxaa dowladda soo saarto marka ugu horeysa waxaa gacanta loo geliyaa gbiyada dowladda markaas kadib le bravad loo ogolaadaa inay isticmaalaan so ani walaashay farxi waxaan kula talin lahaa kowga ha la xiriirto gb-geeda asagaa u sheegaya waqtiga la siinayo iyo waqtiga lasoo deynayo daawadan farxiyo aad baan kugu mahad celinaynaa waxaana ilaahay kaaga barinaa sidii horeba caafimaad aada iyo aada u ballaaran iyo nolol farxad lena ku noolaatay insha allah فرحية from London thank you وهاجا خدك لو كحيق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أقصد وين والله المقعة أنا مدعيكم مسموية حقا على مقالة لندن شرقان بعد تلافنك هكا بحيستيو عنكم مغل لو مقعة أم سمية مقالة لندن أم السمية هاي أم السمية محاجة عشان ويديس نختاركم دكتورك ومحسن تجاري ويدي سلامي عليكم السلام ربي دكتورك هنا ويديو حديدة فوق أي حنون يعني عرفت مكاني كرام يعني حنون كذا aad iyo aad way geynayaan ciribta way geynayaan ilaa iyo hoos lugta ilaa iyo kor xataa way keenayaan waxay keeni karaan xanuunka oo cirbaha maamadayda ciribta aad u xanuunaya yani daawo kastan way isticmaashay ilaa hadda weli way xanuunaya marka neerba miyaa mise marka hal lug miyaa mise labada lug maya hal xaba aad u xanuunaysa okay mararka qaarkood cabdixafiid ama gabadhay maqlayso waxaa jirto uma sameeya lugta lafta ku taalla ee hoos ayaa waxay samaysataa maxaan ku dhahaa laftirkeeda ayaa waxaa ku samaysma laf kale ama ayada laftirkeeda wax yar dhuubata marka hilibkay duraysaa so taasoo kale waxaa la saaraa raajo markii la arko inay laftaas ay leedahay hadhow way la qalayaa laftaas waa la xoqayaa booskeedaa lagu celinayaa xanuunka saasuu ku baaba'ayaa hab ka mid ah waay oo duraaya laakiin haddii vena varicose uu yahay badanaa labada lugooda xanuunaya badan labada xanuun xanuunaya hagaag sumay mahadsanid iyo doctora labadiinuba khad kale ku xiga ahlan wasahlan hello hello asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله سولو ولا المقعة magacaygu waa maryan waxaan kasoo manchester أقصد وين أنا مريم ما حد جعش أنا كيل ولادتي waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka
lugta bidixdaa aad ii xanuunaysa xididkaas hadda uu sheegay ilaa cagta ila xanuunaysaa. aha macluumaad badan ku dar Maryan dhakhtar baan u tagay dhakhtarkii saas u yiri ama dhakhtar wali uma tagin saas aan leeyahay xogaa yar oo information bixi fadlan. dhakhtarku waan u tagay waxa la yiraahdaa Altraisia dhawarka ka haya. waa gartay. marka Altraisia waxa la lugahaaga hadda gaaray. okay marka ilaa misay ku hayeen xanuunkaas ku haya dabool ilaa dhowr 4-5 sano hadda. daawo ma qaadataa? marka waxa ila xanuunaya xididka kasoo waxa xanuunaya markaan foorsado. daawo ma qaadataa buu ku yiri Maryamay? ma gastriga qabay xoogaa way ugu adagtahay inaan daawooyinka qaato. waa gartay. Maryan waxay sheegaysaa waa arthrite. Arthrite waa inflammation ama oo ku dhaco lafaha ayuu ku dhacayaa. haddii ay u raacsan tahay hadalkaysan ka fahmayo arthrite haddii u raacsan tahay xididada banaanka ma yaalaan. banaanka ma yaalaan. gudaha ku jiraan marka waxay u baahan tahay in la saaro Doppler ama echo Doppler ayaa la saarayaa oo lagu ma xididka banaanka ma yaalaan laakiin aad buu ii xanuunay markaan socdo iyo markaan fadhiisto iyo markaan taagnaashaygu badan yahay. oo hal lug kaliya ma labadaba way xanuunay laakiin kan bidixdaa ay ugu daran marka wuxuu ila xanuunay ilaa madaxa ilaa wajiga dhinaciisa kore. okay caawa waxaan ka hadlaynaa xididada oo maxaan ku dhahaa dhiigga soo celiya oo haweenka ay u badan yihiin abunku adigu le raggana wuu ku yaryahay soo noqoshada ay xididada dhiigga soo celinayaan ayaa mashaakil uu ka jira marka adigu waxaa u baahan tahay inaad samaysid Doppler wax la dhahay ama echo Doppler wax la dhahay ama duplex ayaa la samaynayaa kaas wuxuu Soomaali waa maxay Doppler lahaa dadkana soo saartay Doppler u bixiyeen. okay macnaheedu marka waa wax soo eg Dopplerka waxa waaye sida iskaankii ayaa wuxuu wataa fiilo iskaanka ka mid ah ayaa la bedelayaa oo iskaan ahaan kuguma shaqeynayo wuxuu kugu shaqeynayaa dhiigga socodkiisa ku maqashiinaya so wuxuu ku sheegayaa dhiiggaas xididka inuu eber yahay oo macnaha dhiiggii uu soo noqonayo iyo in dhiiggii kor uu aadayo oo fiican yahay dhiiggiisa xididada ayuu ku kala sheegaya so haddii cudurkan uu kala saaraa in artritaha ay rheumatism ay sheegayso uu yahay iyo waxa la kala saaraya in xididada dhiiga ay yihiin wax ay yihiin so Dopplerka raalaaw wuxuu ka tirsan yahay qalab oo iskaanka ka tirsan waay fiilo kamid ah la soo qaadanayo iskaanka iska xiraysa Dopplerka shidanaysa wuxuu ku sheegayaa dhaqdhaqaaqa dhiiga. quruxda qofka aftaqaanid ay leedahay kaga duwan tahay dadka kale markaad isku afgaran weydaan luqadda qalaad afkaaga hooyo kugu sharaxaya daais muhiimadda dhakhtarka Soomaaliga uu leeyahay macalinka Soomaaliga uu leeyahay sheekha Soomaaliga uu leeyahay oo Soomaaliga kugu sharaxay marka doctor anu weligeey ma maqalin laakiin wax ka dhirkisana kuma cilmiga thank you I think Maryam inay maqashay waa hagaag khad kale ku xigay salaamu calaykum. Assalaamu calaykum. ahlan wa sahlan saaxiib soo dhawow. aada u mahadsan tahay magaca walaal waxaan rabay inaad dhakhtarka weydiiyo arrin oo xaaskayga maaragtay magaca brother magaca walaal magacayga waxaa la yidhaha qawaacid soo dhawow. waa dhowaa doctorkan waxaan rabay inaan weydiiyo arrin oo xaaskayga haysato lugaha labada lug ayaa xididada dhan ay muuqdaan. waa gartay marka xididada markay muuqdaan haddana waa la dareemaya xitaa dhiigga waa la arkayaa madow iyo waxyaaba muuqaal madow ah ayaa ka muuqda labada lugoodba. waa gartay waxayna ku bilowdeen markii ay mataqaanaa cunuga ugu horeeyay ee dhashay kii labaad taas oo kale marka kii saddexaad taas oo hadda waxay noqotay xanuun inuu kusoo ziyaado oo ah subaxdii markay soo kacdo ayaa masoo hore ma ka socon karto markay soo kacdo inay 10 ilaa 20 daqiiqo ay fadhidaa kadibna ay socodki bilowdaa. marka qawaacid waxaad u tagteen dhakhtar ma u tagtay xogaa macluumaad si dhakhtarna u tagteen waxay idin yiraahdeen daawo hadii la siiyay GB-ga wuxuu yiri ka soo hadlaysaan London buu yiri maleen qawaacid hagee joogtaa waxaan joogaa London marka xogaa yar macluumaadna si gabadhu dhakhtar ma u tagtay marka macnaha waxa waaye lugaha way muuqdaan xididada toos waa arki kartaa dhakhtar ma arkay dhakhtar waa aragnay mar walba dhakhtar markaa la soo wuxuu ku leeyahay vitamin C ka maqan lafaha xanuunkeeda iyo waxa keenay lugta calaacasha hoose ayaa haddana xanuun ku haya. okay fiiri haddaan fahmay Cabdi ku yara jir khadka camiya
waxaan filayaa mararka qaarkood way dhacdaa markuu qofka tago isfaham la-aankii hadda luuqadda ay noqonaysa iyo wixii laakiin hadduu si fiican u fiiriyo oo hadda doblerkii ama ecodoblerkii aan dhahayn hadduu saaro uu ku fiiriyo uu arkaya in dhiiggii uusan si fiican u socon soo go-aana la gaaraya markaas ayaa daawadii iyo dadkii oo vascularkii qaabilsanaa loo gudbin karaa annaga waan haynaa qalabka oo doblerka u yaala laba dhakhtaraa joogto oo qaabilsan oo sameeya haddii markii go-aan la gaaro oo la ogaado waa ku horta inay bilowdaa daawadii aan ku tusayey diosmin daawadaas oo kale waa inay wadaa xanuunkay yaraynaysaa xididkana meeshiisa ku ekana inuusan sii weynaanin sii kordhin treatmentada lugaha habeenkii inay kor ugu qaado calaamad oo rasmi ah ayuu sheegay oo ah subaxii markay soo kacdo taas waxay sheegaysaa in dhiiggii uu meesha fadhiistay oosan marka way u baahan tahay circulation in tartiib ay markay kacda ka bacdi dhiigga uu dhaqaaqo markaasay socon kartaa marmar qaarkood bararaa la soconaya jaa hadda meel madowna uuna tilmaamayay marka waxay u baahan tahay dan waxaa jira 3 nooc oo qaliin ah kii hadda aan arkaynay oo dhicaan lagu dhex shuba sclerosis lahaay oo lagu baabi'inayo xididadan banaanka yaalaan wixii superficial ah lagu baabi'inayo ku kale waxaa jiro oo asagana oo hadda waa la gubaa waa la xalgelinaya tubo clipka aan ku arki doonaa tubo dheer haga clipka aan ku arkayna waa la gubayaa kiskisa loo gubaa xididka dhan waa xirmaa meesha hadduu xirmo dhiig ma soo maraayo wixii soo baxaya banaanka oo dhan waa dhamaanayaan hab kale oo ilaa ay hadda Italy weli laga sii isticmaalo intaba weli la isticmaalo markii oo xididada kan kor iyo kuwa hoos way isku xiran yihiin xididada isku xira kale oo dhiig u gudbinayo marka waxaa dhacayso haddii laga noogo waa la bixinaa asaga dhan marka baahi loo qabo ma jirto halowto ama qofkii dhibaato kale oo kale maya maadaama xididdo kale ay jiraan oo collaterali ah lahaa ama dhinacyo kale wax dhiiga u wadaayaan ayaga soo qaadaya dhiiga oo wadaayo kuwa ugu badan labada safeenaha lahaa kuwa ugu badan mashaakilka keenaya waa la bixinaya ama sclerosis lagu sameynaa ama waa la gubayaa waa gartay aad iyo aad baa masha qawaacid raba inaan u sheego oo kale xididada xitaa waa kukuusan yihiin wax maaragtay sida nabar oo kale waa kukuusan yihiin dhiigga meesha uu fadhiyo waa la arkaya koraa laga arkaya qofka jirkiisa laga arkaya kaas bes kaas waxaa khatar ah xataa in xidid oo xinjir fadhiisato oo meesha ka dhaqaaqo marka intaysan dhaqaaqin xataa waa inaan laga hortagaa maxaan ku dhahaa oo doblerkaas aan ku sheegay la saara haddii confirm ay noqoto in ay cudurkaas qabto waa laga hortagaya hadba daawada ha noqoto kaniin ha noqoto gaarsaha isticmaasho gaarsada haddaan tusayno oo lugta la gashanayo qabowga haweenka ay gashtaan kaas ha gashato mar walba ha ugu jiro siison blood coagulation uu samaynin haddii aysan uur ama wax ay laheenna aspirinka oo 75 miligram khafiifka ah way isticmaali kartaa waa kan dumarku markay dhalaan qala loo xiro sama geedka loo xiro waa inay xirataa lugaha habeenkii kor u qaadaa markay ay nasanayso aspirin oo kale xoogaa inuu u jilciyo xididada intii go-aan laga gaarayo diosminkaasna daflon clinical line inay isticmaasho iskaankaasna la saaro intaas waxyaabaha ay u baahan tahay xagaag waxaan maleeyaa qawaacid inaan waqti badan ku siinaa adiga qoyskaaga caafimaad baan ku rajeynaynaa daawada cusub ee dhakhaatiirtu ay keeneen iyo iskaankaas ha u daymo la-aan dabcan dad raadinaysid alternative mahadsanid khad kale ku xigay asalaamu calaykum hallo 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 soo dhow walaal magaca waa dhawaay walaal cabdixafiid yani magacayga shariif mukhtaar waaye ladanan ka soo hadla waa ku salaamay adi iyo dhakhtarka meesha joogaba waxaan weydiin lahaa dhakhtarka xaaska ayaa yani 5 sano ka hor yani cunug markay dhalaysi karo hadda oo 5 sano ka hor ah ayaa aad bay ugu dhibtootay marka dhinaca yani labada simaha ayaa yani wax ka gaaraysaan filaya marka kadib yani wax badan bay sheeganaysaa waa ilaa iyo 5 sanadood marka waxaaba dhacday markii u dambeysay dhakhtar kasto aan tagno GB way ka daashay cisbitaal loo diray markii u dambeysay raajay saareen waxay yiraahdeen yani tirir baa jira tirir marka haba jira tirirkii sidii markaas ilaa ay hadda yani dib bay ku qabtaa habeenkii xataa hal dhinac ma saaxan karto 5 minutes ma jiifka dhinac yani waa dhinac kale inay u gaddo salaada dib bay ku tahay ay ku noqotay kuraas bay ku dukataa tirirkii ay sheegeen wax ilaa ay hadda ay leeyihiin yani waa laga qaban karaa ama waa isku imaan karaa waxaas la isticmaal shariif oo wax oo xanuunka dilayo
iyo mid kaloo ay leeyihiin yani asna xanuunka miya ma aqaani lafti laakiin ilaa hadda waa 5 sanadood marka dhakhtar taasaan weydiin lahaa bal maxaan yeeli karnaa yani haddii hagaag shariif mukhtaar from london waxaan jeclahay weli akhad ku jirtid inaad yaro joogtaan jeclahay barnaamijkan waxaa loogu talagalay qof kasta oo soo waca oo barnaamijka laga hadlaya mawduuca la socda in la siiyo waqti ku filan maxaa yeele qof walba waa important laakiin aa idinku soo koobtaan oo walaalka kaa dambeeya ama walaasha kaa dambeysa u naxariistaan idinka weyaan waxaan jeclahay akhadka weli ku jirtid doctor maxaa kaaga baxay hadalkiisan ka fahmayo xaaskiisa ayaa lafta oo bajiinada lafta oo ayaa wax gaareen marka 5 sano waa ilaa hadda maysan reysan kaniiniyaal la siinayaa soo sheegay laftaas marka ay wax gaaraan haddii uusan jabba ahayn ayada kaligeeda kabmayso haddii la siiyo daawooyinkii loogu talagalay xanuunkay ka baabi'inayaan laakiin haddii oo maxaan ku dhahaa weli xanuunkii 5 sano uu socdo hadda waxa aad ugu wanaagsan lafaha maxaan ku dhahaa qalabkan MRI la dhaha ayaa aad ugu wanaagsan oo kuu sheegaya oo la saaraya bacdeen markaas kadib markii MRI la saaro ayaa waxa loo gudbinaa dhakhtarka lafaha waa la tusayaa haddii calaamadii meesha uu asaga sheegayay wixii la sameyn lahaa marmar musmaara lagu xiraa biraa lagu kabaa waa la sukeenaa waa la dololinaa waa la rakabaya marka taasi u fiican tahay in GP-ga hadda waxa aan ku sheegay waxa waaye inay u gudbiyaan dadka ku habboon oo specialist ah oo lafaha oo qaabilsan haddii qof maqaar ku baa maqaarka loo gudbiyo waa gartay doctor laakiin su'aasha shariif mawduucana caawa xagee loo way ka baxsan tahay oo lafaha ayuu ka hadlayaa waxaan mooday inuu su'aal kale weli u hartay oo mawduucan ku saabsan shariif walaalkay marka haddaa hadlaysana dhowr jeer dabcan kaa dhex gala laakiin 90 mile an hour baad ku hadlaysay oo dimaqli kaligeedi dhib ma lahan mawduuca caawan ka hadlayna cami mawduuca uma quseeyo laakiin su'aal qusaysa hadday jirto oo ku gudbinay xididada iyo barnaamijka caawa maxaad jeceshahay ka tiraahdo marka waa idin soo hoosgeliyay iska raalahaw yani kolley ma mashaakil male laakiin hadda waa ku fahamsiiyey dhakhtarka oo GP waa inuu ku gudbiyaa dhakhtarka lafaha MRI la saaraa marmarka qaarkood operation laga yaabo inay u baahan tahay san weli isu imaanaynin lafaheeda jilicsan tahay waa in la jagareeyaa vitamin D-geeda calcium-keeda lafta waxyaabaha ay ka dhisan tahay dhan la controlaa soo gudbisay u baahan tahay oo gacanta loo geliyo orthopedic kuwa lafaha qaabilsan mahadsan tahay shariif shariif waxaan jecelnahay insha allahu tacaala mawduuca aanu ku jirno inaanan ka dhex bixinin haddii kale waxay noqonaysaa jantar rogan barnaamijkana waxyaalaha rutiinka nooca sida joogtada hal mawduuc waan fooda darnaa idinku aa soo dalabteen kaasaanu joognaa shariif iyo xaafadiisa khayr badan baan u rajeynaa ilaahay barakeey waa hagaag khad ku xigay asalaamu calaykum halo ahlan wasahlan soo dhow walaal magacaha xagee joogtaa walaal barnaamijka la socotay sagal TV-ga iska baktiy fadlan waan ku soo dhaweynaynaa maxaad jeceshaa dhakhtarkeena su-aashada walaal walaalow dhakhtarka waxaa rabaya su-aal la weydiiyo lugaha iyo gacmaha xidid in laga haystay in kalena ma aqaan dhakhaatiir badanaa la kulmay waxay iga sheegeen ma lahan okay sagal marka u horeysa waxaa noo sheegtaa sida lagu hayo dabeedna waxaa ku xijisaa dhakhaatiirtu waxay yidhahdeen dan su-aale markaa kow waxaa la ii hayaa labada lugood iyo labada gacmood waaye maxay ahayd oo faraha inta cilaan kala mariyo faraha foodooda cijiyahana way baxeen gebigooduba waa gartay farahana way doorsoomeen inta oo cilaan kala mariyo oo kalarka yeelato way madoobaadeenbo waa gartay marka ilaa imisuu xanuunkaanu ku hayay ilaa 5 sano ahaa waa gartay tahay dhakhtarku wuxuu ku yidhi imisaa jirtaa fadlan TV-ga iska bakti sagalay waaba ka soo baxay TV-ga dhan waa mahadsan tahay waxa lagu yidhi dhakhtarku wuxuu ku yidhi imisaa jirtaa dhakhtarka wax badanaa la kulmay wuxuu hadda waxay dhaheen wax aan dhiigaaga waan baarnay wax cudur kuma hayaan laakiin wixiina xanuuna igu hayaan way xanuunayaan farihii waxaa umalaysaa in ay gubteen oo kaleete lugaha gacmahana wuu sii socdaan kalarka wuu sii bedelmaa okay daaweyn ma qaadataa
daawooyin bale ma siininbo wax qofka markii wax laga helaa daawo la siiyaa soo maahan adiga maxaa la dhahaa meeqa jir oo kalaa tahay ani 27 okay caruur maan leedahay hal cunigaan dhalay okay waxaan daawo kuma ay siinayaan may wax daawo ay ma ay siin qaboobaha iyo kuleelaha yaa daran xanuunka qabowga iyo daran qabowga ku kaco way sii mudanayaan way xanuunaan dhulka ma dhigi karo sagal waxay u eg tahay cudur oo la dhaho Raynaud syndrome ayuu aad ugu eg yahay Raynaud syndrome waxa waaye periphery qaybta ugu dambayso ee gacmaha ayaa dhiigga marka qaboob hadduu ku dhaco aad oo maxaan ku dhahaa ciriiri gelaya soo dhiiggii si fiican uma gaarayo gacmaha afkiisa hore way dhici kartaa maxaan ku dhahaa in uu jiri karo arthritis oo maxaan ku dhahaa infection oo ku dhacaya asna way jiri kartaa laakiin waxay aad ugu badan tahay syndrome Raynaud laayo oo periferiyada qaybaha geeska ah inaysan dhiigga si fiican u gaareen ama aysan soconin oo qaboob kaana aad ay ugu daran tahay marka waxay u baahan tahay dhiig lagama helo oo hore kama sheegayo waxa wanaagsan in haddii aad heli kartid dhakhtarka maqaarka dermatologist way fahmayaan in la tuso ay ku wanaagsanaan lahayd haddii uusan GP-ga uusan daawo ku siinaynin hadda GP-ga dhakhtar waxay ii direen oo maqaarka okay waa dhakhtarkina hadda way ugu dheereeyeen xilliga horta xanuunka saa'idka iyo hayo cudurkayga la sii garan karana waa xilliga qabowga aad iyo aad dhakhtarkii ugu soo horeeyana waxaa waaye bisha 6aad markaas waa roonaan ee kuleelaha markuu jiro syndrome-aan kuu sheegayo waa syndrome Raynaud saa u taqaanid cudurada waxaa lagu sameeyaa ama loogu magac daraa qofka hela qaar badan loogu magac daraa soo Raynaud ninkii hela waaye waxa waaye periferiyada geeska oo faraha ah ayaa xididka markii qaboobaha jiro oo si fiican uma tagaa dhiigga soo qofka dhan uu ka madmadoobaanayaa ama xanuunna uu dareema oo aada soo xanuun ma jiro xanuun aad ayaa jiraya marka asna daawo leeyahay bomaatooyin jira ayaa jira la martada iyo kaniin la cunaa jiro oo la isticmaalo intee joogtaa adi London mise meel kale Bristol haddii dhakhtar oo dermatologist oo degdeg ah heli kartid inaad raadisid waaye syndrome-han in dhaqsi lagaa daaweeyo because marka aad haddii ay imaadid waa lagu siin karaa daawooyin haddii aad London imaan kartid London waa imaan karaa inaan ballan ku imaado ay fiican teleefonkaaga oo kaleeto inaan helo adiga rugta caafimaadka Cabdixaafid ku sheegi doona sagal ku mahadsantahay qayb qaadashada caafimaadka ku rajeynaa mar dhow waxaad soo qaadataa qalin iyo warqad dabadeedna teleefanada dhakhtarada ayaanu soo qoraynaa dabadeedna teleefonkaas wacaysaa receptionka kaa qabanaya insha allahu tacaala markuu waagu baryo ballan bay kuu sameynayaan waqtiga ballantaan baad imaan doontaa haddii alla yidhaahdo dabadeedna adoo habiyaa tegi doontaa insha allah okay sagal from Bristol thank you dhawaan waxaa noo socota video aan jecelnahay inaan nala daawataan balse laba teleefon aan ka hormariyo khadka loo ku xiga asalaamu calaykum hallo waa ku maqlaa walal asalaamu calaykum salaam waraxmatullah soo dhawo magaca hallo ahlan wasahlan asalaamu calaykum وعليكم السلام ya وعليكم السلام soo dhawo walaal waxaan doonayay inaan su-aal weydiiyo dhakhtarka insha allah mawduuca caawa ku saabsan dabcan ha soo dhawo walaal magacaase cabdillaahi ah aan kusoo dhaweyna mr cabdullaahi fire away saaxib soo daa ha ma cabdixafiid baa ila hadlayaa ha aniga dhakhtarku waanu ku maqlaa cabdullaahi alright brilliant akhi xididka lugta maaragtay bidix I have numbness actually, no sensation at all. No sensation. So I've no feeling in my left leg. That's the problem I'm feeling really. gartay. Marka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa dee lugtayda maxaa problemkaas ay haystaan. Okay, fiiri sokor ma qabtaa? Sokor ma qabtaa? May ma qabo. Sokor goormay bilowdan waxaan? Couple of months in Makola. Okay, jug ma ku gaartay? May wallahi waxba ima gaarin. Sport ma samaysaa? Sporty. Waan samayn jiray bahayd laakiin waan iska joojiyey. Okay, kan waa wax ku saabsan xididada nerva
kii yelowga aan tusaayo waay neerfuhu ku saabsan yahay maxaan ku dhahaa numbness iyo waxyaabaha uu dareemayo waa system nervoso waay haddii uu isku dayo in uu qaato sida neurobian kininiga la dhahay kininiyaasha oo maxaan ku dhahaa oo nerviyaasha xoogaa dib usoo nooleynaya hadduu isticmaalo uu baroobeeye iyo waxyaabaha qaarkood oo kanini bainkillerka ah oo muddo xoogaa 1 week oo kale bitajaabo haddaysan weli bacaynin waxaa loo baahanya in oo si fiican examination loogu sameeyo in nervaha mashaakil uu ka jiro iyo in kale haddaan wax ma dareemayo dhaho dadka diabetikada ugu badan laakiin blood pressure debation sometimes wuu dhici karaa badanaa waynu isku xiran yihiin blood pressureka iyo waxa wuu keeni karaa laakiin hal lug keliya iyo hal meel hal leg keliya hal wax keliya cholesterol high ma qabtaa okay waxay u baahan tahay xoogaa in diagnosis fiican la gaaro oo la baaro la taabto la fiiriyo sababta aysan zone heeway nerve heeway laakiin markan taagan weeyaan ama soconayo okay marka waxaa u baahan tahay neurologist u baahan yahay inuu fiiriyo uu arko ayaa loo baahan yahay badanaa haddii oo sokor uu qabo sokortaa keeni laheyd oo waxyaabaha qaarkood numbnesska ah wuu keeni karaa trauma ama jug oo keeni kartaa laakiin hadda waxaan kuula talin lahaa neurolog arag ama GP-ga muxuu ku dhahaa GP-ga intaa u tagtay dadkan waxa weeyaan ballamo xun bay ku dhigayaan and laakiin anigu si private aan mar u tegay waxay ku dhahdeen you know lower back diskiga ku jira L4 L5 there's a nerve that touch one of your nerves so that's the way you have numbness okay markaas oo kale qaliina u baahan tahay so inay qaliin ku soo jeediyeen ma aqaan haddii oo lafta wuxuu ka hadlaya laf dhabarta hadda waxaan dhex galnay system nervous waa ka baxnay xididada yelowgaan sii dhex galnay so lafaha isdul saaran waa vertebra 33 laf waaye oo dhexdooda waxaa ku jiro carjow carjowda laba dhexdooda xididada nervaha gaduudka ka baxaya oo kuwa waxa xukumaya oo dhan ama dareenka qaaday so markii lafihii ay xukmaan ayaa xididkii taabanayaan marka kaas numbness uu keenaa qofkii inuu ka dhintay kaasoo kale qaliin u baahan yahay lafta maaragtay artificial ay u gelinayaan ama waxay diskiga ka bixinaan prolapse diskiga marka u dhaco oo diska xoogaa uu ka soo baxo diski kale ku rakibayaan so neurosurgeon ayaa shaqo ku leh Cabdullaahi like jogging or running or what physical exercise I can do Cabdullaahi waxaa u baahan tahay inay aragtid neurosurgeon kuwa neurosurgeon ama orthopedic oo MRI meesha la saaro oo maxaa la wixii markaas ku haboon I think inaa qalin u baahan tahay aan u malaynayaa in ay ku qalan oo meeshaas carjowdaas waxa taabanaya in lagaa saxo laakiin ma caawinaya exercise-kaas inta iska joojiya intaana intense exercise mashaakil u sii keenaya intense exercise mashaakil u sii keenaya ayaak saaxiib waxaanu ku rajeynaynaa caafimaad degdeg haddii ilaahay yidhaahdo Mr. Cabdullaahi thank you mahadsanid ka qayb qaadashadaada waxaan soo deynaynaa teleefon kalaanu qaadaynaa dabadeedna waxaanu siinaynaa fursad video dhakhtarku noogu sharaxo qeybta labaad ee barnaamijkan caawa late night show weli waxaa nagala socotaan xarunta dhaha TV-ga Universal London halow qof kale ku xigay asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhawow magaca waa cabdixafiid iyo dhakhtarkan rabay way ku maqlaan soo dhawow magaca asalaamu calaykum waxaa la dhahaa nimco nimco xagee joogtaan London aan joogaa waa ku soo dhaweynaa barnaamijka la socota nimcaye barnaamijka la socotaa obviously no walaal waxaan ku sheegayaa dhakhtarka waxaan xididada lugta bidixda ayaa ay xanuunta nimcay teleefonka nagala soco TV-ga iska baktiya walaal adoo raalli ah mahadsanid hadal lugta bidixda ay xanuunta xididka marka dhinacaas waan baktiyey walaal waan baktiyey soo dhawow waan baktiyey walaal mahadsanid marka walaal waxaa waaye lugta bidixda ay xanuunta xididku dhinac buu iga madow yahay halka jilibka raacsan hoostiisa ah
marka aad iyo aad bay xanuuntaa wayna barataa muddo oo 7 sano ah hadda lugti kale ay igu darsantay way isla bararaan lugta kale markuu hadda bararku ka dhacay dhibca madmadow bay leedahay raajita waa lay saaray waxay dhaheen ma laha waxba ma lihid haddana waxay saareen sanadkii inaga tegay February iskaana lay saaray waxay yiraahdeen waxba ma qabtid anigana still wali luguhi way bararsan yihiin way xanuunayaan ma Doppler ma sameyn Doppler ya Doppler ma la sameeyay maxaa la sameeyay Doppler maya waxay saareen kalafaha way saareen mid kalena way saareen okay waxay aad ugu badan tahay sida hadda aan sheegin topic-kan ay barobay saaran tahay madowga oo sameysmaayo xididdo barbarsan ma jiraan hal meel ay xididka oo jilibka u dhowaa kisto madow ah soona baxay markaan taabtana way danqana bes okay ayaga waay ay calaamaday waxay sheegayso wuxuu aad ugu egyahay safeenaha xididka la dhahayo midna waxay dhahaan grande weyn yahay midna bicolaha ayuu aad ugu egyahay safeenahaas inuu bararsan yahay so Doppler waxa la dhahaa kii hadda aan ku sheegay oo iskaanku ku dhegan hadda iskaan saartid ma arkaysid haddaad raajo saartid ma arkaysid MRI ma ku sheegay so Dopplerka kaliya ayaa sheegaya dhiigga ma noqonaya oo sidii loogu talagalay ma u noqonaya mise dhiigga meesha ku harooya so xanuunka meesha ka imaanaya kalarka isbedelay يلا كلينيكada uu yaala la hada aad bay xanuunta marka lafaha xagga dhabarka sinta xitaa lugta bidixda way raacdaa markaan soconaayo ma talaabsan kara hadaan xoog u talaabsado lugta way bararaysaa waa gartay Naciimo ma doonaa ka dhaxgal laakiin waxa laga yaabaa inaadan maqal adiga asxaabta kaleba dhakhtarku wuxuu sheegay inay hayaan nidaam sheegaya dhiig inuu shaqeynayo in kale oo aan MRI-ga ama iskaanku aysan sheegaynin ama X-ray-gu marka insha Allah taala arinta la soco wada hadalkaaga raalli oo ka dhaxgalay amay wad mahadsantiin walaal saas ay barsiin marka socodka dheerna uu dhibi markaan socdo oo guriga imaado waxaan rabaa inaan iskala bixiyo luguhu markay nastaan markaasaan shaqo qaban karo haddaan taagnaadana way bay fuurayaan aad bay barbaayaan agartay aad ay ugu badan yahay marka waxa u baahan tahay Dopplerka waa qalab kale oo lagu fiirinayo inuu dhiigga kor u socdo oo fiican yahay xididadan oo xididada kor u wada dhiigga waaye kaas oo aad ugu badan yahay calaamadaha ay sheegayso dhan way waafaqsan yihiin topic-da macaawa aan ka hadlayno marka waxa haddii GB aad helaysid adeeysa xididada waaye oo loo sheegi karo Doppler idir la dhihi karo way fiican tahay haddii aadan helayninna oo private jiro ama meel jiro ama anaga xataa noo imaan kartaa oo waa lagu saaraya Dopplerkaas mar haddii confirm ay noqoto oo adiga aad qabtid cudurkaas oo xididada ah waxa bilaabaysaa daawooyin waxa isticmaalaysaa kaalsada la gashanayo ilaa haddii markii la helo gubid ayaa jirto oo am sclerosis oo meesha lagu sameeyo waa lagu la qalajinaya dhacana lagu shubaya waa la daminaya asaga dhan waa mahadsantahay marka doctor waxa wax lagu gubayo waa laser baan u fahmay saddex nooc oo qaliinka ah no awal midka la bixinayo okay xididka dhan aan siibay stripping dhahan kan labaad waxa waaye hadda clipka aan arki doono oo la gubayo kan saddexaad waxa waaye irbada qaadanee dhacaana ku jiro waa ku dhex shube marka ku shibtid sclerization oo sameeyna waa isku dhigaa kaas waa kan yaala meesha doctor clip sharx soo deeyay daawasho wacan system to treat over 135,000 patients to date. Now, Venus introduces the Closure Fast radiofrequency catheter, a next-generation technology that uses a new segmental ablation technique instead of the old continuous pullback approach. The new Closure Fast catheter heats a full 7-centimeter vein length all at once during a single 20-second treatment. After each segment treatment is complete, the Closure Fast catheter is repositioned to the adjacent vein segment for treatment. Catheter shaft markings facilitate fast and accurate repositioning of the catheter at each segment. Ultrasound visualization of the Closure Fast catheter can be used to confirm catheter positioning.
The segmental ablation approach eliminates the variability of pullback speed to control power delivery. Thorough tumescent infiltration and external compression assure good contact between the catheter and the vein wall. The Closure Fast catheter shortens procedure time while delivering optimal therapeutic power and offering the rapid and mild patient recovery physicians expect from RF. An average 45 centimeter length vein treatment may be typically performed in 3 to 5 minutes. Fully compatible with existing Venus RFG Plus generators after a software upgrade, the Closure Fast catheter monitors treatment parameters in real time and delivers optimal therapeutic power through the system's controlled feedback mechanism. Now, with the new Venus Closure Fast catheter, the speed and simplicity of endovenous RF procedures in the office and hospital may be significantly enhanced over existing therapies. dhammaan baa bulshooyinta maanta la socodsiinaya in xarunta caafimaad ee Soomaaliya Doctors Medical Center ee ku taala Tottenham High Road ee ku dhagan masjidka Sunna loogu talagalay in dadka lagu daweeyo guud ahaanba cudurrada guud iyo cudurrada carruurta iyo cudurrada haweenka. Intaasi waxaa dheer in xaruntaasi ay ka howlgalaan ilaa iyo 13 dhakhtar oo Soomaaliya ajnabi isugu jira loogu talagalay in laga buuxin karo foomka la xiriira qaadashada laysimada tagaasida BCO-ga iyo waliba basaska iyo waliba waraaqaha kale caafimaad dadku ay u baahan yihiin. meel kastoo aad joogtaan bulshooy dhaqaatiirtu waxay kugu hadlayaan afkii hooyo Soomaaliga Soomaaliya Doctors Medical Center. waxa kale ugu talagaleen goobtaasi gudniinka wiilasha iyo waliba dadka doonaya inay membership ka noqdaan amaba xubin buuxda xaruntaasi. waxaa intaasi ku dheer in walking clinic aad ka helaysid qalabka lagu ogaado guud ahaanba cudurrada kala duwan ee ka jira uurku jirta ultrasound-ka iyo qalabka kale casriga ah ee lagu ogaado cudurrada wadnaha. yaalna ma ogaan meel kastoo aad joogtaan intaan sheegay ka badanba inaad ka faa'iidaystaan dhakhtarada 13 kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road oo ku dhagan masjidka Sunna. wixii faahfaahina kaashada iyo laga baqaay quruxdii waa dib u soo noqonaysaa tii kale laga cabsana in xinjir ka tagta meesha oo hadhow sanbabkii iyo meelaha ay xirto oo xanuun imaad waxaas oo dhan ayaa laga hortagaya. so nooc oo ka mid ah operationada la sameeyo oo 5 minutes soconaya oo xirigaas la isticmaalayo oo lagu deynayo koronto lagu deynayo ay waaye. doctor waxaad keenteen clinic daawo arrintan u khaas caawan ka hadlayno. daawadaas ay effective u tahay iyo waxay qabato daawadaas waxay diosmin ama daflon ayaa la isku dhahaa laba daawo oo isku jira waaye oo hal waa kaniini waaye oo hal xaba ah ku imaanaya laba daawo isku dhex jirto waaye. so waxay sameynaysaa markuu qofka uu laqo daawadaas ay jirka ay gasho ayaa xididkii oo weynaantii ama maxaan ku dhahaa xanuunkii ayay baabi'inaysaa oo xataa looma qaato kaliya kan looma qaato waxaa loo qaataa bawaasiirta. bawaasiir waxaan kaa iloobay inaan kugu daro xididada oo weynaanta sameynaya kuwa oo xididada lugaha kaliya ma aha bawaasiirtu way ka tirsan tahay xididadan weynaanaya dadka badanaa qaba qaar ka mid ah percentage badan ayaa bawaasiir la qaba hemorrhoid la qabo biles ay dhahaan. waxaa kaloo jirto esophaga tubada dhuunta ku jirto laftirkiisa waxaa ku samaysma xididadan oo kale ayaa ku samaysmi karaa. waxaa minka ama ilma galeenka hooyada laftirkiisa xididadaas way ka samaysmi karaan oo hadhow dhiig baxna way keeni karaan oo mashaakilka marka meel walba u qaabilaya. so waxaa loogu talagalay kaniinigan meelahaas oo dhan haddii uu qofka cuno in aysan weynaanin xanuunkii baabi'iso meesha ay kontaroosho ayaa loogu talagalay. daflon aad ay u isticmaalaan daflon magac ama diosmin waaye meesha way taallaa. dumarka uurka lama qaadan karaan. diosmin waxaa la siinayaa markii ay dhashay ka bacdi. okay so dumarka uurka lama qaataan. okay waa gartay aad baan kaaga mahad celinaa doctor. dib waxaan ugu noqonaynaa khadadka telefoonada. asalaamu calaykum. hallo. asalaamu calaykum. calaykum assalam waraxmatullah walaal soo dhawow magacaha. Caisha walaal. aan ku soo dhaweynaa walaal barnaamijka la socotay.
waa maxay su-aashaad qabtid su-aasha mawduuca way ka baxsantaha walaal walaal hadday mawduuca ka baxsan tahay taleefonka dhakhaatiirta qoro gooni oo la hadal dabadeedna mawduucaas ka baxsan halkaa ku adres gare khayr allah ku siiyo okay thank you mucaisha waa mahadsanta waana ka xunahay mawduuca caawa su-aal ka baxsan dabcan qabtid khad kaloo ku xiga haddaan u gudubno asalaamu calaykum calaykum salaam barakaatu waa kusoo dhaweynaa walaal magaca magacayga Zainab baa la dhahaa waxaan rabaa daktarka inaan su-aal yar kooban weydiiyo oo waxa uu maanta ka sheekeynaya aan ka weydiiyo waa kusoo dhaweynaa Zainab lugta midigta ayaa xanuunaysa jilibka ah muddo 3 bilood ah jilibka laabitaankiisa meesha hoose xaggan dambe xagasha waa ibaqlay ama xagasha Soomaa gadaal jilibka dambe ha meesha ayaa xanuunaysa xididda yar yariis oo aan badnayn waa ku yaalaa oo ku cusub xanuunkaasna marka hore dhabarka ay xanuuni jiray sinta ay xanuuni jirtay dhabarka isku bedeshay haddana lugtii usoo baxday xanuunkii dhabarka iyo sinta way iga istaageen meeshaan hadda lugta isugu kay keentay even markaan aan nasto xanuunka waa iga yaraadaa markii aan shaqaynayo ama aan socdana aada ii dhibtaa xitaa inaan jiisaayo oo lugta oo faraha ku soconayo oo maxay hatay igu qasabtaa oo ciribta dhulka aanan dhigi karin waa gartay taas ayaan rabay inaan ogaado in cudurka maanta uu ka sheekeen okay raalli ahaw jilibka dhan ma xanuunayo mise qaybta gadaal ah jilibka dhan marka hore xanuunayo qaybta gadaal iigu badan tahay sometimes bararay keentaa macala jilibka dhan ma bararayo cajarka jilibka iyo wixii ka koreeya kor iyo jilibka wixii ka koreeyo ha way ku bararayaan waa ay bararaya ha okay bararku wuxuu u badan yahay dhinaca cajarka u badan dhinaca gudaha cajarka ha safeena waa arrintan way keeni kartaa marka mar walba hadda waxay noqonaysaa dhakhtar ma u tagtay ma lagu saaray qalab daktar uma tegin cudurkan wuxuu igu bilowday ilaa 3 bilood hadda lugtaan aan isku arkaya operation mar aan la igu sameeyay oo dhuunta ah kadib ayaan waxaan isku arkay marka weli uma tegin daktar waxaan islahaa wuu kaa tagayaa kareem iyo wax xanuun joojiye waxaasa u qaadan laakiin lugtu way kasii dareen maalin ka dambaysa inuu vitamiinskeyga wax iga dhiman yahay iyo inuu cudurkan yahay intaasaan rabay inaan kala ogaadaam inuu maya vitamiinada markii vitamiina maqan yahay hal shay ma haleeyaan oo meeshaas barar keliya uma keenayaan waxay aada ugu badan tahay in xidid uu wax mashaakil uu ka jiro haddii jilibka uu yahay jilibka x-ray ama waxyaaba qaarkood ayaa sheegaya in artriti iyo rheumatoid iyo waxyaaba ay jiraan laakiin hadduu cajarka dhan bararaya aad sheegaysa meeshaas uuna wax kasoo baxaya waxaa baahanta GP-ga inaad tustid hadduu indhaha saaro asaga kuu diraya dobler ama eco dobler ama wax lagu ogaado xididka inuu fi asaga yahay mashaakilka iyo in kale marka waxaan kula talinayaa inaad dhakhtarka tagtid horta GP-ga ka bilow oo aad tustid way xanuunaysaa aad tiraadid soo wuu ku kala saarayaa oo ay garanayaan GP-yada markaas ka bacdi ayaa waxaa loo gudbayaa in la daweeyo xididka okay wax yar ka horna waxaan ka maqlahay inaad lahayd qofkii bawasiir hadduu leeyahay iban inay sababayso kale badanaa way isku xiran yihiin ha bawasiirkana marka waa leeyahay marka taas waa dhici kartaa okay aad ugu badan tahay sababtoo xidid ballaarta leh waaye oo xididada dhiigga celiyo wadnaha ku celiyo waa buluugka ahaa oo hadday aan sharxay marka related skin way isku xiran yihiin mar hadda calaamada aad sheegaysid ee bawasiir ay la socoto waa confirm in dobler la saaro kaliya u baahan tahay hadda okay markaan u tago daktarka waxaan weydiinayaa cudurka caawa ka sheekeynaysa ha varicose vein ay dhahaan okay haddaan idinka idin imaadana xaruntiina way ka imaan kartaa welcome tahay waa imaan kartaa insha Allah waa mahadsantihiin wacalaykum salaam aad baa mahadsantahay waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo xarunta markaa wacdaan dabcan taleefonka lain ka qorayaa dabadeedna ballan baa laidin sameynaya dhakhaatiirtu inta badan waxay ii sheegaan inay meesha overcrowded noqoto dad fara badan ay yimaadaan marka ballan samaysta insha allahu tacaala idinka laftigiina si aad waqti fiican u heshaan dhakhaatiirtuna ay markaas ay time fiican idiin siiyaan aad iyo aad mashquulkoodiiba aada u batay masha allah dad fara badan oo soomaaliya inta badan isugu yimaada marka ballan samaysta si aad maaragtay aada waqtigiina uga faaidaysataan idinkuna maaragtay aada u faa'iidaan waa mahadsantihiin Zainab baa ahayd qofkii hadda u dambeeyna soo wacay mahadsan caafimaad baana ku rajeynayna hello soo dhow walaal magaca barnaamijka waa la socotay waa la socday su-aal baa qabtaa un jeclahay su-aal baan qaba walaalo waxaan rabaa dhaktarka inaan weydiiyo xanuunada uu ka hadlayay soo dhow ayaa waxa ay hayaan lugaha waxay labada lugoodba laakiin lugba aada ii xanuunaysa
waa gartay marka sida lagu haya xanuunka markaa noo sharaxday waxaa haddana u gudubtaa dhakhtar haddaa u tagtay hooyo soomaaliyeed wuxuu dhakhtarkii ku yidhi dabadeedna insha allah su-aale markaa aka dhakhtar waan u tegay labahan iskaalsooyin bay dhowr jeer ii qoreen waxay igu yidhaahdeen waxaad qabtaa because xididka waxaa la arkaa mararka qaarkood aad bu u weynaadaa lugaha oo loo arkaa laakiin waxaa igu dhacay lugaha aad bay ii baraleeyihiin macaa lugta laba hoose oo lagu socdo wuxuu iga soo baxay cajirada hadda bowdyada aad buu iga soo baxaa markaan istaaga badiyo ma socon karo waxaad moodaa xididadu sheegaya maxaa ka neerfaha dhabarku iga hayaa oo mid dhabarka marka waxay dhahaan badanaa kaa dhabarku wuxuu iga galay aad buu ii xanuunayaa waxay dhaheen ka dhabarkaa lugta saameeya sababtida lugta aad bay ii xanuuntaa wax ma qaadi karo ma socon karo laakiin kuwan kalena way igu badan yihiin marka hadda kuwa dhakhtarkayga wuxuu igu jibiil inaan kaa qalamo weyo kuwan wax kale kuma samayn karno bas iskaalsooyin waxaa siigan waxba iga tari waaye waa gartay marka intaa markaan fahnay su-aashaadu waa maxay hooyo soomaalida waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo yani hadda wuxuu sheegay mid labaad wax kaloo walaalo aan qabaa dhakhtarka inaan weydiiyo korkayga waxaa ku jira wada markaad taabatid maxaa la dhahaa murqo waxaa ku jirta wax aad moodisaa umata kuskus reer baa ka buuxa meel walba sida xagee kale gacmaha miyaa lugaha miyaa dhakhtarka lugaha oo gartay kubka maxaa la dhahaa bowdada oo kale ay xididna way damqanaya aad u xanuunaya okay maxaa la dhahaa marka ugu horeyso su-aasha koowaad oo ah vena varicose kan confirm waay jibigu wuxuu yidhi waa la qalayaa so wuxuu usoo jeediyey in laga bixiyo sharbaatada wax loo xirxiro ilaa ay weli soo jeediyo bararka kuuskuuska ah cellulitis waaye dufan oo meel fadhiistay oo waaye marka qof walba oo qaba vena varicosa marka uu lugaha meelahaas taabto waa xanuunayaan oo xanuunka kale separate uu ka yahay oo dhabarka neerfaha qaabilsan kan caawa aan xooga saarayno waa vena varicose vena waaye so haddii loo soo jeediyey ani waxaan dhihi lahaa in ay marto haddii laga bixiyo waxyaabo badan ayay ka raysanaysaa because tan ugu khatarsan markuu xinjir ku samaysmo oo xinjirtaas meesha intay ka tagto ama tagto sambabka ama waxa tagto way u dhiman kartaa so haddii uu dhahay kalsadii wax ma tarayso inaan qaliinka u gudbiyo waayo inay ogolaataa u roon waxaa dhici karta kuwa dhakhtarada qaliinka markay u tagto inay usoo jeediyaan clipka hadda arkaynay waa gubaynaa keliya kuma qalayno mafan inta xataa waa laga helayaa UK balar waay America soo bilaabda badanaa inta buu yaalaa marka kaas in loo gubo oo wax dhan ay ka dhamaadaan cellulitaha kuuskuuska meesha ay sheegayso asagana related uu leeyahay oo inuu ka sameysmo cayilka badanaa ay ku xiran tahay hooyo soomaaliyeed intaasay kaaga dhintay mise waxba doonaysan ku beerisa walaalo waxaan weydiin lahaa dhakhtarka anoon la yaqaan because hadda way iga daayeen qaliinkii maba igu dhinac markii ugu horreeyay waxay u dhaheen hadda lugtan xanuunaysa waxaan rabnaa inay lugta bidix oo kale wadnaha hadda uu keenaay dhaheen kasi wadnaha waxay u dhaheen wadnaha mararka qaarkood si xun ii xanuun oo waxay dhaheen heart attack baan kaaga baqaynaa bilo waan kuu geynayna marka waxay dhaheen si warta waxaan kale iyo kii dhabarko ay dhaheen waxbaan kaa qalan taasay ku mashquulan marka lugtaan maba waa iska wadaayiyo iyo xididadeeda marka su-aashaada maan fahmin weli laakiin fadlan su-aalaha hooyo soomaalida maxaa jeceshaa dhakhtarka inaa weydiiso yani dhakhtarka hadda waxaa u sheegay inaan intaan ku noqdo oon u tago dhaho ii dira meelo mise waxaan dhahaa iga saara oo kaniiniga hadda sheegay dhakhtarkaan ujeeda uu meeshooda laga helo ma kaniinigoo kalaa la cunaa mise waxaan sameeyaa waxaan dhahaa iga saara doctor maxaa kula talinaysaa waxaa step by step qaliinka hore kama helaysid badanaa fursad soo marto way marmaray kuusoo tuurayaan warqada appointmentaha wadankan wuxuu yahay intii laga gaaray kaniin horta sii isticmaal oo kaniin wuu kaga sii hortagaya tan kale GP-ga ku noqo in oo mar labaad adiga ready u tahay oo aad rabtid in xididkan la saaro u sheeg marka ha ku gudbiyo kuwa dhaqaatiirta qaliinka kuwaas hadhow waxay ku siinayaan fursad ah saddexda nooc ee qalab ay hayaan kee rabta ayaga ku weydiisanaya marka kee adiga ku fudud in la gubo oo laga 5 minute oo macana lagu sameeyo in laga siiba asaga dhan adiga lagu weydiisanaya dhaqaatiirta watali ku soo jeedinayaan kan adiga waa adiga su'aasha weydiisa xitaa kee hadda iyo haboon ayaga hadana talay ku siinayaan soo saasa isku dhaafsanaysin marka ugu horeysa GP-ga ku gudbiyo oo sheeg ani in laga bixin rabaa ha noqoto aesthetic qurux ahaan ha noqoto halis oo in wadnaha ay wax gaarsiiyaan ama sababka ay gaarsiiyaan ha noqoto in adiga skinki uu bedelmo ulcer inay samaysanto meesha inay fuqdo waxyaabo badan inay ka hortagto hadda intay ayada dhalinyaro tahay ee fiican tahay ay ka hortagi karto inay taysan da noqonin hagaag hooyo Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa tala kugu wanaagsan oo qurux badan oo dhakhtar ku siiyay
caafimaad ballaaran baanu ku rajaynaynaa adiga inta kaleba daawanaysaba waa hagaag waa mahadsanta khayr allah inasiyo jasaakum khayr aad iyo aad baa umahadsantahay adiga allah ka abaalmariyo had kaloo ku xiga asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum assalam waraxmatullah soo dhawo walaal magaca walaal maxamuud baa la yidhahdaa horta aad baan idinkugu mahad celinayaa barnaamijkan waa barnaamij xaqiiqatan aad iyo aad waxtar u leh waa kaaga mahad celinaa haddaadan adiga iyo daawadayaasha kala daawanona soo wicinin wax badan sheegi maayo marka idinka laftigiina daawadayaasha xaqiiqatan topigan aad u fiican yahay dhakhtarka juhdiga uu galay waqtiga uu ku bixinayo iyo adiga inta horta waa idinkaga mahad celinaa horta ilaahay khayr idinka siiyo amiin soo dhawo Mr. Maxamuud ثاني waxaan rabaa horta hore topigan ahlan maaragtay Venevac waa horta aad u fahanay oo waxa uu ku saleysan yahay lower limbs ku xirab laba kusho bisina u diin dhakhtarka Venevac waa wuxuu ku dhacaa lower limbs miyuu ku dhacaa ثاني taas waa mid waa inaan weydiin rabay mid kale waxaan rabay cudurkan leeyahay lymph nodeska oo glands-ka bini aadamka saameeya qaybta neegiska oo Soomaalida marka aan joogno waxa la oran jiray qaamo qashiir samti wax la mid ah lymph nodes la yiraahdaa qaybtan dhigtoosida qofka soo barreeso marka waxaan rabay haddii dhakhtarka arrintaas iyada horta aad weydiin karto inaad weydiiso wada lymph nodes maxaa sababa inaan horta aad horta u danaynayay because waxyaabo badan oo ka fiiriyay qanjirka qaybta hoose ee barran marka dhakhtar register dhigta ayaan la kulmay afka ayuu iga fugiisi kariyey deeto maaragtay smoker maahi wax nabar iguma yaalaan marka waxaa sababi kara qanjirkaas inuu soo bararo sida macasha qaybtaas oo hoosoo kale horta reasonkaas aad u danaynayay Mr. Maxamuud qanjirka intuu ku yaalaa walaal dhakhtarka kula hadlaya qanjirka bararsan intuu ku yaalaa qaybta hoose oo macasha dhegta gooska meesha ku dhamaado mandible bone lafta garka koraa qaybta kore dhuunta okay lymphanooda waa saxsan tahay su-aashaada koowaad lugaha hoosu ku dhacaa vena varicosaha xididada hadda aan ka hadlayo lymphatic system waxa waaye xidido kale oo aada u yaryar oo ku dhegdhegan lymphanooda waxyaaba la dhahayo oo jirka bini aadanka difaaca waaye oo maxaan ku dhahaa dhicaan cad ayaa dhex maro oo ayagana waxay ku shubaan hadhow veenaha oo wadnaha ayay ku shubayaan so mararka qaarkood lymphanoodaha bararaya maxaa keena infectiona keeni kara gaar ahaan kan oo dhuunta oo kale infection ayaa keeni kara oo noocu rababa ha noqdo haddii uu qofka oo uu ka shakiyo in virus keenay in HIV keenay in tuberculosis ay keentay in infection noocu rababa ha noqdee waxaa la sameeyaa biopsy waa la qaadaa dhicaana laga qaada waa la abuuraa waa la fiiriyaa maxaa keenay ma dhicaan isbedelaya ma kansara ma tumora ma HIV ma tuberculosis kulli meesha laga fiirinayaa bararka marka infection aad ugu badan waxyaabaha keeno marka infection nooceena in la ogaado waaye then haddii kaas kaliya uu yahay maxaan ku dhahaa in la eego kulli system lagu eegayana way jirtaa lower limbsku ka hadlay lower limbeska way jiraan runtiis waa lymphanooda korka dhan wataa soo haddii ay bararayaan lugaha oo kale lymphatic systemka markay problem uu ka jiro for example haddii kelida aysan si fiican u shaqaynaynin oo kaadida ay protein raacayso lower limb way bararayaan proteinka wuxuu u diidaa in biyaha ee banaanka ay u baxaan ee barar u imaado proteinka wuu soo jiidaa biyaha ayuu kusoo celiyaa xididka dhexdiisa soo xididada haddii oo kaadibda ay raacayso proteinka oo kale waa halaaba haddii beerka laftirkiisu halaysan yahay saas oo kale mashaakil uu ka jiro lymphatic problema imaanayo oo lymphadii way bararayaan oo dhicaankii way sii daynayaan fursad ayay biyihii u helayaan inay ku baxaan ay tagaan maqaarka hoostiisa ay tagaan so system lymphaticada uu sheegayo waa kii saddexaad aan ka hadlaynay oo ka duwan kulli oo difaaca loogu talagalay noodulyaal ama kuuskuusa oo dhunta ha noqoto meel walba laablaab ay ku yaalaan koogan aan sheegnay kaas waayo Mr. Maxamuud horta aad horta mahadsantahay dhakhtarka waa mahadcelinaa immunity systemka ma la oran karaa antibodieska bini aadanka sign ayay u tahay as long lagu arko qofka lymph nodes meel kamid marka ay soo banaanto ma la oran karaa ha maxamuud hadda waxaan ku dhahay difaaca militariga oo xerooyinka waaye waxa adiga aad taabatay
su-aashaad aaday muhiim u tahay. waxaa taabatay system nervos meeshaas militaria fadhiyo markii infection uu soo galo ayay weerar qaadaan. so systema immunitary lagu sheegayo waxaan ku mateli karaa sida ciidamo oo kale oo diyaar u ah haddii dagaal jirka lagu soo qaado inay weerar galaan. soo xerooyin military ah oo haddana tubooyin u wada dhexeyso oo baabuuradooda ayaga lee mara oo aan loo ogoleen dhiig inuu meesha soo dhex galo. tubooyinkaas waa waxaan ka hadlayna. marka waa systema immunitary waxa laga wada kaas waayo. waa saxsan tahay. absolute basically horta waa la shaqeeyaa ina jirta waa ka shaqeeyaa because anaga maxaa la yidhahda dhaqtarna waa garanayaa waxaa la yidhahda staffka dhan waa under control oo waxa haya occupational healthga haya maxaa la yidhahda dhiigagooda iyo waxooda dhan marka immunity ahaan iyo dhiig ahaan iyo everything under control waa negative waaye maxaa la yidhahdaa cuduradan oo tropical diseaseka oo kale waa talaalaan ka qaadanay oo waa talaalanahay sida mumbiska ha noqoto ama tuberculosiska ha noqoto ama hepatitis ha noqoto marka almost under control aan anaga dhan oo aniga laftiga kula hadla aynidan ka shaqeeyaa oo Royal London marka basically the things meesha yaalla waxay tahay I don't know Soomaaliya caawa dad ku gubi jireen waxyaabo caawa saari jireen marka waan fiiriyey almost waxay yidhaahdeen niyaho waxba problem saasa ma laha moxiclofa markaas iyada aan ka qaatay oo aan qaadanayo antibiotic HPV marka waan ku mahadsantahay xaqiiqatan luqadda aan isku fahmayna iyo waa aad horta kaaga mahadsantahay xaqiiqada juhdi badan aad iyo aad baa u mahadsantahay Mr. Maxamuud ka qaybgalkaaga iyo su'aalaha weydiisay waa kaaga mahad celinayna. waa xagaag waa maqlaysaan Mr. Maxamuud wuxuu yiri dadka waa la gubi jiray wax barnaamijkan intaan ku guda jirno insha Allah taala waxaanu idin ku refer garaynaa ama idin diraynaa dhakhaatiir jaamacadaha ka soo baxeen iyo shahaadooyinkooda la garanayo isla mar ahaantaana halkan ka shaqeeya marnaba idinma dirayno kuwa idin guba haddii ilaahay yidhaahda iyo kuwa mingiska iyo booramaha daaweeye oo shahaadooyinka wataan aan la garanaynin western iyo sida dhakhaatiirta soomaaliga kula hadasha maxamuud allah ku karaamay saaxiib khad kale ku xigay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelnahay haddaad noo soo koobtid inaan kaa dhigno qofkii u dambeeyey marka take a minute iyo half insha allah dabeedna soo gabagabeynaa soo dhawow magaca Okay. عبد الحفيد السلامي إن شاء الله هذيك دكتورك بقى. waan kaa qaadnay walaal magaca magacayga deeqa la dhahaa London ma ka soo hadlaya. waa gorta soo dhawow mahadsanid waxaa dhowr sano ka hor lug baa layga hayay waliba bidixda xidid oo gadaasha ka soo baxay sinta ilaa ma aragtay suulku imaanaya waan ka roonaaday xoogaa hadda few years aan ka fiicnaaday haddana lugtii kale baa layga hayaa oo tii hore maana tii kale u bedelin ha marka kolley mar baan tagay MMR saareen markii hore waxay ugu dhaheen runtii laf dhabarkaaga meel ka soo baxayso meel taabanaysa marka wax baynu ma arkin way iska haydaayeen marka waa iska roonaada cabaar swimming aada dabaaliya waxaasi waa iska roonaada laakiin hadda waxaa moodaa sintaydan xidaa kasoo baxaya ilaa jilibka hoostiisa imaanaya waa midigtii hadda waa garta marka xanuun baa runtii iga qabanaya mar markaan fadhiyo waa inaan istaago cabaar socdo waa iska roonaanaya waa gartay marka dhakhaatiirta markaa u sheegtay lugtii kale inay tahay maxay ku yidhahdeen deeqo maba u teginba weli hadda ilaa hadda 4 bilood camal aa saas ahay waxba uma teginin waagii hore aada runtii aysan waxna saas isiin painkiller iska cun waxna ma aragta weyn aysan ila samayn almost 9 monthsna waan ka daba socday markii dambe private aan tagay wax weyn maaha igu dhaheen waad iska roonaanay laakiin MMR lay saaray wax kale lama saarin waa gartay khad ku yeela jirtay dhakhtarkii adoo u sheekaystaan maadaama qofkii u dambeysay tahay doctor maxaa lahaa xanuunka wuxuu ka bilowdaa sintaa tiri haddii abdixaamid mar haddii sinta la aado markaas waa systema nervosa sidii hadday tii hadalkeeda ugu horeeyey oo neerfaha kasoo sinta kasoo baxaya oo aadaya lugta aadaya nerva shatic shatalgia shatic ayaa lagu magacaabay nerva satica ku xanuunaya inay ku dhaheen aan filaya kii hore may si cad ima dhihinin maraan physiotherapy aaday iyaga u maleeyay iyagu iguma dhihinin runtii waxay aada ugu eg tahay neerfaha inuu yahay markaas MRI lagu saaray waxna ma la helin laakiin hadda haddii weli continuous ay tahay mar labaad inaad dhaqaatiirtii ku noqotid oo fiirsi markii hore tan ay hadda dhinacan ay xanuunaysay wax yeelna inaad dhahdid ama inay mar labaad MRI kale ee dhinacaas ay saaraan ama in horta x-ray ay ku bilaabaan ay fiiriyaan oo dhabarka laga saaro because wuxuu u egyahay nerve shatic nerve waxaa la nerve ka soo baxay lafaha elyaasha ah oo lumbarka ah oo aaday lugta aaday kaas
ayaa laga yaabaa inuu yahay. haddii uu ahaan lahaa xididada oo dhiigga soo celiya waa xididada barbarara oo dhinaca lugaha kasoo wada baxa. hadda masawirada daada arkaysay ma aqaani kaas ayuu ahaan lahaa, nooc kale u xanuun lahaa, laakiin sinta kama soo bilowdeen. waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsan tahay deeq. waxay qofkii ugu dambeeyay caawa barnaamijka nagala qayb qaata. intaas ayaanu jecelnayn kusoo gabagabin, laakiin intaan soo gabagabin doctore maxamuud wuxuu ku yidhi waaladan waxbuu magac buu ku sheegay af soomaali kale maxaa lagu dhaha intaasanahay wuu saxsan yahay qumanka ma aragtay bahalada oo qanjirada oo systema oo immunitary qaabilsan waaye. xoqalo ma maqashuuliga way dhici kartaa xoogala inay yiraahdaan. doctor abshir cabdalla masuul ayuu ahaa. farsamadu waa calinaaji iyo cabdirashiid rashka. weliye maxamed saciid asaxaaf baa nala joogay iyo weliba xamdi shidane waanu aad iyo aad ugu mahad celinayno. farsamada qaybteeda korona wuxuu ahaa axmed daahir. waxaa idiin soo saaray barnaamijkan anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac idin isla mar ahaantaan idinla socodsiinayay. intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono taqwada ilahi iyo midnimo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.